daawadayaal dhowaan waxaa baraha bulshada haystay xujooyin kala duwan oo dadka qaar ay darsanayaan fartooda malab halka kuwo kalena ay dhexda ka qaninayaan. xujada farta malabka la darsanayo waxaa baraha bulshada markii ugu horreysay ku baahiyey xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo laga soo doorto gobolka Saaxil, xildhibaan Cali Jaamac Caraale Cali Qaran. xildhibaanka ayaa garabkayga fadhiya waxaana la yeelan doonaa waraysi ugu horeyn xildhibaan ku soo dhaweey MMTV. dhowaan baraha bulshada waxaad ka bilowday xujo adigoo fartaada malab darsanaya oo ay ka dhigan tahay waqtiga xukuumadda madaxweyne muuse oo talada dalka hayso malabba farta la darsanay. maxaad ula jeedaa? luqmaano waa ku dhawahay MMTV runtii waan mahad celinaya bahda MMTV waa runtii bulshada ka qabtira warar lagu kalsoon yahay. haddaan ku soo dhawaado su-aashaada jawaabteeda runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii dhisay mudane muuse bixi cabdi 2017 maadaama ka mid ahaa dadkii dhisay waxaan qabaa inaan 100% aan aad ugu qanacsanahay hogaamintiisa taasaana kaliftay runtii inaan dadka fahansiiyo inaan dadka la majar habaabin bulshada dadka farta soo celcelinaya qaniinkeeda iyo maxaan ku leeyahay farta dhexda laga qaninay runtii ma aha dadkii community mujtamacii xukuumaddu gaadhay ama xukuumaddu wuxuu qabatay waa dadkii gafanayaasha ahaa ama jeclaa inay jaqaan hantida ummadda. marka waxaan fahansiinayay inaanay dadku maxaan ku raadayay dadku aanay farta dhexda ka qanin ama bulshada reer Soomaaliland aanay farta dhexda ka qanin intii Muuse Bixi talada hayay laakiin ay farta dhexda ka qanineen intii gafanayaasha ay hantida ummadda ku dul noolay. gafana maxaad uga jeedaa? waxaan uga jeedaa runtii waxa jira dad badan oo hantida ummaddu si qaldan ay u gaadho. marka waxaan leeyahay dadkaasu waxa weeyaan dadkii ama xukuumadda kamid xukuumadihii hore ka mid ahaadaan ama dadkii xukuumadihii hore ku tiirsanaaye sida qaldan mashaariicdu u gaari jirtay ahaadaan dadkaasaa laga xanibay wixii ay maxaan ku raadayay dulsaarkii ummadda ay ku haayeen bulshadii baa maxaan ku raadayay loo faafreebay hantidoodii taasaa keenaysa inay dad badan ay qayliyaan oo ay dhibaatayso in la faafreebo ama la hakiyo wixii sida qaldan u baxay. xoolaha ummadda laga xanibay maxaa loogu qabtay? erey Soomaaliyeed baa yiraahdaa dadka xaafadaydu geel waleedahay laakiin cid ku faantaan lahayn. xukuumadda Muuse Bixi runtii waxaan qabaa inay waxyaabihii ugu badnaa ee xukuumadii Somaliland isaga dambeeyay ay qabteen inay tahay tii ugu madnayd ee wax badan qabata. marka taasa ayaa runtii keenaysa in wax badan oo maxaan ku raadayay mujtamaca loo qabtay inaanay dibadda u soo bixin. waxaad moodaa madaxweyne Muuse dadka u ah maxaan ku raadayay oo ah mas'uuliyiinta xukuumadda ka ah inay u badayeen technical oo aanay siyaasiyiin wax badan wixii ay qabteen bulshada u soo bandhigi kara ay ku yar tahay. taasaa keenaysa inay dad badan isweydiiyaan muxuu Muuse qabta laakiin xukuumaddu waa xukuumad wax badan oo la taaban kara dadka u qabatay iyo dalka. dad badan waxay dhalaan mashaariicda madaxweyne Muuse intuu joogay la hirgeliyay iyadoo dhaqaalaha badan haddana la keediyay oo aan ay leeyahay wax badan laguma qaban. mashaariicda la furay qaar badan waxay ka tirsan yihiin kuwii madaxweyne Silaanya bilaabay. xildhibaan adu taa maxaad kaga jawaab lahayd? runtii mashruucu waxa in la bilaabaa waxa ka culays badan in la dhammaystiro. bilowgii waa ku amaanaynaa xukuumaddii hore wax badan bay bilowday oo mashaariic waaweyn bay bilowday laakiin wax kastoo la bilaabaa waxa maxsuulkeedu yimaada markuu dhammaado. marka waa ku amaanaynaa xukuumaddan inay mashaariicdii bilowga ahaa ee xukuumaddii hore ka horreysay ay bilowday inay dhammaystirtay. taasuna waxa weeyaan guul labadii xukuumadood ee dalka isaga dambeeyay ay u soo hooyeen qaranka. adigu xildhibaan xisbiga cid baad ka soo baxday doorashadii ugu dambeysay xisbiga cid baad ka tirsanayd goormaad malabka farta la gaadhay? micnuhu ma aha inaan anigu hanti ama maxaan ku raadayay wax ii gaara anigu xukuumadda aan ku qabo micnuhu ma aha. micnuhu waxa weeyaan sawirka guud ee ah in laga muujinayo Somaliland in dadku ay maxaan ku raadayay ay halkii dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan ay taagnaayeen inay maanta hoos uga dhaceen. taa waxaan leeyahay been baa laga sheegayaa dad badan oo kale way majar habaan way ka duwayaan dariiqeeda. dadku maanta waxay taagayeen isku filaasheen nololeed 80% dadka community-ga Somaliland qof kastaba naftiisa iyo noloshiisa halkii ugu wanaagsaneed bay maraysaa laakiin waxa weeyaan waxay dad shakhsiyaad san horeba kuugu sheegay doonaya iyagu inay kaligood noolaadaan ayay ahaayeen dadkan marka farta dhexda ka qaninaya. laakiin waxaan leenahay xukuumaddu waxay qabatay mujtamaca iyo reer Somaliland wixii ugu madnaa uguna wanaagsan. xisbigu cidmeed ka baxday oo adigan hadda madaxweyne Muuse taageeraya marar kalena madaxweynaha difaacay. anigu xisbiga cid waxaan runtii tacab badan baa iga jira
2002 ilaa maanta waxaan qabaa inaan laba jeerun inaanan xisbiga ucid aanan codsinin 2002 markii tartankii asxaabta la furay waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii u codaysay faysal cali xuseen faysal cali waraabe uu codkooda ku soo baxay sidoo kale 2003 markii saddexda madaxweyne ee Siilaanyo waxaan jeedaa Daahir Riyaale Siilaanyo iyo Faysal ay tartamayeen waxaan u codeeyay anigu codkayga siiyay Faysal 2005 markii baarlamaanka markaasaan runtii iyo 2017 labada jeer mooyaane intii kale waxaan ka mid ahaa bahweynta xisbiga ucid oo aan ahaa dhalinyaradii ku taabaqaatay xisbiga markaanu markastaba xisbiga ucid baan ahay waanan ahaan doonaa laakiin haddana anigoo mucaarida oo xisbiga ucid ka tirsan ima farayso inaan wixii qaranka u qabsoomay inaan sheegi waayo waa sheegaynaa waana ku faanaynaa waana garab joogaynaa taageerada aad u muujinayso madaxweyne muuse 2017 aad sheegtay aad u muujisay ma la odhan karo waxaa sababtay inaad madaxweynaha isku deegaan ka soo jeedaan adigoo xisbiga ucid aad sheegtay taageero u ah haddana aad madaxweyne muuse kambanarskiis ka mid noqotay arrin deegaan dabada ma ka riixaysa runtii anigu markaa hore waxaan ahaa taageere laakiin kaadir xisbi maan ahayn kaadir xisbi oo xisbiga ucida maan ahayn laakiin taageere xisbiga ucidaan ahaa mudane muuse biixi cabdi markii uu ordayey ama jagada madaxweyne u ordayey wuxuu igu soo daray 22 qof 23 qof halkan ugu ahaa campaignerskiisa marka waxaan ka mid ahaa dadkii campaignerka xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil markaasaan anigu xisbi aan ka mid noqday inaan ka soo muuqdo laakiin intii hore waxaan ahaa taageere community-ga Somaliland waxa weeyaan waa dadka codeeya cid kastaaba lama oran karo marka haddaanu qofku kaadir ahayn ama xisbigii aanu ka mid ahayn golihiisii dhexe memberskiisii aanu ka mid ahayn lama oran karo waa xisbi laakiin anigu waxaan ka mid ahaa taageerayaashii xisbigii ucid ee waqtigii hore laakiin 2017 mudane muuse biixi cabdi wuxuu ii cogday inaan ka mid noqdo 23 qof berbera ama saaxil uga ahaa campaignerskiisa madaxweyne muuse biixi cabdi maxaa ka jira inuu kuu diiday waqtigaad u ordaysay xildhibaan musharax xildhibaan inaad noqoto xildhibaan cali qaranow inaad xisbigiisa kulmiye iska sharaxdo oo uu ku sababeeyey deegaan ahaan inaanu cod badan xisbiga kulmiye ka helin arrintaas ma jirtaa runtii waxaad moodaa hadalkaas inuu dad badanoo warxmatashiil inay soo celceliyaan runtii anu ma qabo mana arkin meel aniga xisbi kulmiye aan cod aan kaga doontay musharaxnimo oo laygu diiday hadday jirto cid xaqiiqiyan u garanaysa maanta iyo markay ahayd iyo goobtay ahayd way sheegi karaan laakiin meel aan xisbiga kulmiye anigu kursi ugu doontay oo aan idhi kursiga baarlamaanka isiyo ay igu diideen ma jirto xisbiga ucid anaa tegey codsaday Faysal waa ku mahadsan yahay anaa ka codsaday idhi waxaan ahay musharax golaha baarlamaanka xisbiga gobolka saaxil waanu igu taageeray runtii waxaan arkayay haddii aan galo xisbiga kulmiye waqtiga inaan rag badanoo maxaan ku dhahday loolanka siyaasadda aan ku wada jirnay inaan fursad kaga helo inaan xisbiga ucid aan ka noqdo kaalinta koobaad markaad eegto xisbiga ucid iyo xisbiyada kale ee saddexdii xisbi ee ka tartamayey saaxil iyo Somalilandba berbera waxay u soo baxay 10 xildhibaan kaalinta afraad baan ku jiraa marka la leeyahay cali community-giisa ayaan codkiisu u goynayn baarlamaan waxaad eegi kartaa 10 xildhibaan waxaan ahay qofka afraad xisbiga ucid ee gobolka saaxilna waxaan ahay qofkii koobaad marka taas waa dood jaban baan qabaa dad badan oo ay runtii dhaliisha marka ay sheegayaan doonayay qofka inay boogu yeelaan ay isticmaalaan laakiin meel ay xukuumadda ama muuse biixi aan isku gaadhnay ama ku wada hadalay oo kursiga laygu diiday haba yaraatee ma jirto hadday jirtana waad sheegi doontaa ugu dambeyntii xildhibaan ururada furista ururada siyaasadda ayaa ka mid ah qodobada shacabka Somaliland u dhagtaagayaan golaha wakiilada xeerkii madaxweyne dib ugu soo celiyay xeerkaas soo celintiisa jan ururada furaba nooga waran horta waa qodobe madaxweynuhu soo celiyay welina ma soo gaadhin oo waan ka hor dhici maayo waxa uu ku soo celiyay kale runtii marka golaha la furo ayaynu arki doonaa markaad eegto furista ururada bulshadu xoog bay u danaynayaan ama dadka maxaan ku dhahday siyaasadda doonaya inay jirajiradeeda soo koraan xoog bay u danaynayaan waanay qudaraynayaan inay asxaabta
ama ururada cusub inay ka mid noqdaan aniguna runtii dadkaasaan ku jiraa aadka u danaynaya inay asxaabta ama ururada cusub runtii door fiican ku yeeshaan waanan qabaa in marka golahu yimaado doodeeda iyo maxaan ku dhahay araaxdeeda inaan ka dhiibto runtii haddii la leeyahay ururada la furayaa ama aynu dee dhaqaalaheedii dalku waad aragtahayo sanad kasta doorashaynu ku jirnaa oo waxyaabaha ugu badan ee dhaqaalaha qarankan maxaan ku dhahday uu la geliyaa waxa ugu badan waa doorashooyin anigu taana waxaan qabaa in bal doorashooyinka sidii loo sidkin lahaa sidii labadii hore iminka waxay nagu soo foor leh doorashadii madaxweynaha sidoo kale waxa ayadna miiska saaran doorashadii golaha guurtida waxaa la hadalhayaa doorashada asxaabta in la furto ama la furo waxyaabahaas waxaan filayaa inay qarankeena yare curdinka inay culays badan ku yihiin iyadoo taa laga eegayo oo qaranka loo dhibrinayo ama loo naxariisanayo waanu eegi doonaa bal hadba sida ay macquul u tahay laakiin anigu waxaan xoog u danaynaya in asxaabta la furo oo asxaabta ay noqdaan asxaab furan oo asxaab cusub oo weji cusub oo dad cusub ay dhiig cusub qarankan kusoo kordhaan daawadayaal intaas waxaan ku saafmeeraynaa waraysi kooban oo magaalada Berbera kaga qaadnay xildhibaan cali jaamac caraale cali qaran oo telefishinka MMTV ku siinayay luqmaan maxamed faarax iyo sakariis ciid waxaan kaga tegaynaa salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu